dagaalada ka soconaya Shabeellaha Dhexe ee koonfurta Soomaaliya gaar ahaan dagaalka ka socda degmada Balcad ee gobolkaasi oo maalintii saddexaad galay dhimashaduna ay ku sii dhowdahay ilaa 10 qof dhinacyada dagaalamaya maanta waxaa suurtagal noqotay oo lagu guuleystay dadkii dhaawacyada ahaa ee saddexdii maalin la soo dhaafay dhulka baadiyaha ee lagu dagaalamayo waxyeelada ka soo gaartay in loo soo qaado magaalooyinka Muqdisho iyo xarumo caafimaad oo ku yaala Balcad qaarkoodna waxaa la sheegay in loo qaaday Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose dagaalka ayaa maanta dib u qarxay sidii wararka idaacadan ka baxaya aad ku maqleyseen waxaana maanta ku dhintay ugu yaraan 3 qof horena waxa u geeriyooday dadkii dagaaladii maalmihii la soo dhaafay u dhintay ay ahaayeen 5 qof tirada dadka dhintay 3 maalmood dagaal beeleedka ka soconaya tuulo hoos timaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuna dhow xadka Balcad la wadaagto Afgooye ayaa waxay noqonaysaa ilaa 8 qof tirada dhaawacyadana waxay ka badan yihiin 10 kale dadka dhaawacyada qaba waxay isugu jiraan kuwa ay xaaladoodu liidato iyo kuwa xaaladoodu ay tahay mid dhexe qaarkoodna waxaa la sheegay in dhaawacyadu ay aad u fudud yihiin waxaa la kala geeyay magaalooyinka kale ah Afgooye oo Shabeellaha Hoose ka tirsan iyo Balcad oo Shabeellaha Dhexe ka tirsan qaar kale oo la sheegay in xaaladoodu ay tahay mid aad u liidatana waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho odayaal ayaa maanta markii ugu horeysay ku baxay kuwaas oo laga diray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe hayeeshee waxaa xusid mudan odayaasha baxay ee waawaan caawa ku jira dagaalkiina joojiyay labada beel ee dagaalamaya waa ay ka madax bannaan yihiin waa dad kale oo ku soo baxay oo halkaasi kala dhaxgalay waan idin soo gudbin doonaa odayaashaasi qaarkood aan la hadlay laakiin aan ku hormarno xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saacadii la soo dhaafay waa ay degan tahay mid ka mid ah ciidanka dagaalamaya oo ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Balcad oo aan telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo wararkii ugu dambeeyay dagaalkii maanta waxaa lagu magacaabaa Cabduqaadir Cabdi Macow wuxuu ka mid yahay dadka halkaasi aagga lagu dagaalamayo jooga dagaal baa dhacay dagaalkaas oo dala soo weeraray deegaankeeni iyo dhulkeeni iyo dhaqankeeni ayaa yani in ay dad yani erligeeni iyo dadnadeeni isku dastaan ayay yani dad ku fikireen ما دام سوتجرين إن شاء الله إلى إذنكي ويعني رد على مي دلوقتي ما نقول واجبته. وأنقرت وايمسا جيرده داوعنا وايمسا. والله يعني بنا حق صافين ما كهاي لكن بنا أيوة الشم لا والله. شنطة دينعنا كلمة ما أنتو كريبا مسوا دقاكي ما سعودان. ما شرعي ما أنتو قصارها أتجارسيسين إذنكو محا حكوا هالشين. adeero ma faahfaahin karo oo dhinacaas hadda anigu yani islama joogno wax war oo hadda waana la kala xiran yahay oo nin walba difaac ku jira bagal adiga xaggee joogtaa ila hadlaysaa ma goobihii lagu dagaalamay mise meel ka agdhow maya goobtii lagu dagaalamay furunta horaan jooga aniga magal ma dadka dagaalamayaad ka mid tahay maya anigu nabadoon dhaqanka aan ahay waa la yaqaanaa constitutionka Hirshabeelle iyo koonfur galbeed inta badan wax ka soo dhisay oo macquul oo nabadoon la yaqaanaa way maxaa isku haysataa nabadoon dhulkan de dhamaan ma ayay dadkiina isdiriya dhamaanayay hal kale ma weysi ardayda Soomaalidu waa deegaan kasta waa uu yani isku xoog sheegasho waayo Soomaalidu deegaankeeda wax kale ma aha magal waan gartay dagaalka waa wali hadda uu kala jira wax hadda yani siyaadaha oo damba ma jiro waa la ciidamada qolo walba yani deegaankeedii difaac kaga jirta goormu istaagay kii maanta socday adeero abaani adigu xilli yani doorka waan gartay yaa idin yimid oo ilaa waqtigan soo kala dhaxgala dadka dagaalamaya waxayna waa waxyaabo yani nabadoonnaa iyo wax degmada laga soo gaaro way jiraan laakiin weli wax dhaqan ma jiraan magal cid idinla soo xiriirta ma jirtaa oo Hirshabeelle ah ama dawladda dhexe ah ما دور فدرالكنا ما هي Hirshabeelle ma hayno anagu halkaasaan yani difaaca ku jiraan dad gurigooda ku galqareysana magal waya waxaan rabaa dadka dhaawacyada xagee loo qaadayaa xagee lagu dabiibaa oo cisbitaal ku yaalaan maya ana waa magaalada Muqdisho la geeyay wixii dhaawac ay waxay dhintay waa laga soo gudbiyay magal wayah nabadoon baa tahay furuntii dagaalka joogtaa waxaa la dagaalamayay waa dad kale oo Soomaaliyeed hal ma du aragteen dagaal inaad gashaan intii aad wax wada hadal ku xalin lahaydeen wallahi ana saacada ka horan gaaray anigu nin dagaalamana nin dagaal loo yaqaanana mi dhamaan yani inta istaqaamama yani nin nabada ka taliyanahay horta magal waan gartay ma aan hadda inaan wax hornay uma tagin meesha xaaladda oo culays badan iyo yani gardarada ugu soo duulay wixii waa iska dhigay talaab baa meesha u tagay magal
taladaada aad u tagtay maxay ahayd ma soo in dagaalka joojiso ma ahayn adeer walaal baan wadnay odayaasheeda inaan yani wax iska dhahno arrinta yani galdarro ah oo nala ku sameeyey sidaas wey sidaa meesha kusoo gaaday mayo ma waxaad u tagtay halkaa inaad dadkaaga kala hadasho waa ku maqlaya ma maqlaysaa adeer sidaas wey nin nabadeedaan nahay ma nin colaadmahi nabadoon baan nahay qabiilka waxaan kaa rabaa ma waxaa u tagtay in dadkaaga aa wax ka weydiiso dhibaatadii gaartay mise waxaa u tagtay in aad xalliso oo labada dhinacba aad isu keento waa u taagana saacadihii waa u taagan saacadihii aan soo gaaray iyo go-aankii aan ku imid saas u ah ma la xiriirto dhinaca kale wallaahi weli furfur caawa iyo wixii ka horeeya mawgii maanta jaajba ma jirin buu dagaalkaa hor lahaa oo buuq iyo dhaawac iyo dhimasho iyo waxbaa lagu jirjiray iyo waxbaa lakala daldalayay annagu dad carays oo yani lagu soo duulay aan iska ahayn waktigeena waa istifaaciga ku jirna waxa weeyaan su-aasha dadka isweydiinayaan weli dawlad idiima imaan hirshabeelle idiima imaan odayaashiinii dhaqanka ahay ee halkaa tagayna labadii dhinac baad la kala joogtaan miidiyaasha waan ka hadalnay waa gelinay miidiyaasha waa ka hadalnay idinkaa naga soo dibdhacay kulmiye magal odayaashiina rajadaa qabtaa ina xalashaa waa intee aad u fiicanta rajada aan qabno in yani wax guna laga gaari doono ayaan ku wadnaa yani alaa nasrullahi qariibun ilahay nasrigiisa mar walba lagama dayriyo nin walibana yani in ilaahay yani qulubtiisa uu yani ku soo celiyo yani waxa ilaahay yani loogu dhawaado magal cabduqaadir cabdi macow wuxuu ka mid yahay dad ku sugan aagga lagu dagaalamayo oo saacadii lasoo dhaafayna halkaasi joogay dhegeysaa sidaad maqlaysinna wuxuu faahfaahin ka bixiyey goobihii lagu dagaalamay caawa siday tahay waxuuna sheegay in labada dhinacba weli gooboodii ay kala joogaan oo ay difaacyo ku jiraan waa yahay dhinaca kale odayaal ayaa maanta ka baxay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe odayaashaasi qaar ka mid ah oo aan telefoonka kula xiriiray waxay ii sheegeen in ay ka madax bannaan yihiin labada beel ee dagaalamaya halkaas markii ay tageenna ay u suurtogeli weysay in labada dhinac ay kala dhex galaan saakii aroortii hore laakiin gelikii dambe ee maanta mar uu roob ka da-ay goobaha lagu dagaalamayo ay u suurto gashay in ay dhex galaan labada dhinac odayaashaasi waxay kaloo sheegeen in ay yihiin dadka iskale milki ahaan dhulka lagu dagaalamayo oo aysan labada qabiil ee dagaalamaya midna ka soo jeedin laakiin waxay sheegeen dhulkaasi beel ka mid a kuwa hadda dagaalka ku jira inay hore u karaysatay sidaas darteedna ay go'aansadeen in dhulkooda aan lagu dagaalamin caawan xaaladdu ay tahay mid degan birrina sidaasoo kale waxay sheegeen in waawaantii sii bilaaban doonto waxaa ka caawiyey arrintan inay halkaasi tagaan maamulka degmada balcad ee hirshabeelle ugaas maxamed weli ugaas xasan waa mid ka mid a odayaasha dhaqanka sidoo kale waxa uu sheegay inuu ka mid yahay dadka iskale dhulka lagu dagaalamayo oo uu balcad ka diray odayaal dhaqan laguna guulaystay in la xalliyo dagaalkaasi caawa saacadihii dambe ee galabtana ay u suurto gashay inay galaan halkaasi waa knn ayuu u warramay bismillahi raxmaani raxiim waa salaamayaa marka hore idaacadda raadiyo kulmiye iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa jirta inuu dagaal ka dhacay degmada balcad shalay iyo maanta dagaalkaasoo u dhexeeyey maleeshiyaal beeleed oo laba beereley ay ka soo jeedeen oo deegaankaas ah dagaalkiina waxaa ku dhintay shalay oo 4 ah iyo maanta oo 3 7 iyo 8 ku dhaawacantay allah u naxariisto inta ku dhimatay inta ku dhaawacantayna boogtaas allah ka dhayo waxaan u dirnay guddi oo nabadoonna iyo samadoonna iyo deegaanka hirshabeelle guddi ay ka soo jeedo si ay meeshaas nabad iyo baaqi xabad joojin ay ugu soo sameeyaan annagana aan gobol kale ay iskugu yimaadiin aan ugu baaqay waa yahay tirada dhimashada aad ii sheegtay ma waxa weeye maanta oo keliya mise waa dagaalkii labada maalmood socday ma labada dhinacba mise waa hal dhinac faahfaahin naga sii waa runtaa in oo si waadax looga hadlo dagaalka waa dagaal labadii maalmood uu dagaalka socday waayo dadka ku dhintayna waxay ka soo kala jeedaan labada beelood ee ku dagaalantay deegaankaas waana 7 ruux 4 maalinta hore dhimatay iyo 3 maanta dhimatay iyo intii ku dhaawacantay marka ma aha mid oo hal dhinac ka dhintay waa labada meelood dhimashada waayahay halka lagu dagaalamayo waa dhul ka yara fog magaalada xaggee ugu dhow ee dhaawacyada cisbitaal ahaan loo geeyaa deegaanka lagu dagaalamay 15 kilomitir waa meel balcad u jirta
oo ka tirsan beesha Garasweyne tuulooyin ka mid ah deegaan ahaanna waxaa iskala dhulkaas beesha Hilib Daarandoole waxa ku dagaalamayna waa beeraley ka soo kala jeeda beesha Shiiqaal iyo beesha Daawud markii xisaabtan iyo dhacdada meesha laga hadlo oo laga run sheegana deegaanka dhulka Hilib Daarandoole waxa ka codsaday beeraleyda beesha Daawud si ay ugu dhaqmaan uguna noolaadaan dagaalkana wuxuu ka yimid dhinaca maamulka Koonfur Galbeed oo ay beesha kala ka soo duushay oo dhulka Hilib dadka kacbanayay ee weerar ku soo qaaday dibka iyo dhaawaca iyo dhimashadana sidaas uu ku yimid laakiin wax walba say ku dhaceen lama dhaho waxaan go'aansanay in dagaalkii la joojiyo guddi beeraley oo hogaaminayo gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda degmada Balcad iyo ku-xigeenkeeda Xaaji Cumar Axmed iyo Xaaji Ali Siidow ayaan u dirnay iyo nabadoon Cali Barre iyo nabadoon Ibrahim Baashanow ayagana waxay u suurta gashay inay xabadda joojiyaan dadkii ku dhaawacmayna hore loo soo qaado isbitaal ahaanna Argooye iyo Balcad ayaa loo soo kala qaaday isbitaal waaweyn ma aha kulley Muqdisho loo sii gudbinaya qofkii lagu dhayway halkan Balcad baa joogtaa dadku 2 maalin iyo maanta 3 ayay dagaalamayaan maxaad mar hore u kala gal weydeen intay dhimashadu intaan gaarin dad dagaalamayo nin kasta asaagar isla leh waan ku baxnay xabadihii dhacayay ayaan madaxeena meel aan ka istaajino iyo meel aan kaga gurmano aan ka waynay labadii meeloodna markaas qof war iyo hadal naga yeelayay ma jirin ilaahay wuxuu nagu suurtageliyay maanta ayadoo roob xagaay da'ayo dhaxana ay jirto in ay dhinaciisa sokeeyay oo warka marka hore naga yeelo kadibna qaybta kale ay u gudbaan odayaasha haddana waxaan ku guulaysanay inay xabadii markaas ay istaajiyaan dhaawacyada la kala qaado goobihii marka hore ay ka kala yimideen ama ay ka soo duulayna ay ku noqdaan intaas inay dhimatana waa qorneed marka muddada oo anaga asleenahay joojiye amba kaalinta iga waran Hirshabelle ku leedahay xalinta iyo waanta aad wadaan maamulka Hirshabelle aasatan maamulka ka jiro degmada Balcad wuxuu lagu saaciday gaadiid 3 gawaari oo odayaashii iyo beeraleydii baxday loo kiriyay wuxuu kaloo baaq ku jeediyay in barrito hadduu ilaa yiraahdo oo maamul degmada Balcad ah in ciidan ay kala dhex dhigi doonaan haddii dagaalka ay odayaashii hadalkoodii ay diidaan maamulka Afgooyena baaq ayaan u dirnay gudoomiyaha degmada Afgooye asigana inuu ku daydo maamulka degmada Balcad si arrintaas odayaasha xal iyo gobol ay isku yimaadeen ayna hore u sii soconin dagaalada hadda jira waa dagaal wiilku ma dhasho rajada aad qabtaan ilaa intay gaarsiisan tahay inuu dagaalka dib u soo bilaaban maadaama 3 maalmood uu socday haddana aad ku baxdeen alxamdulillah shukr rabbil caalamiin wax kasta xaq ilaahay ka qoran yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in ay wada hadalada wiilasha dagaalamay sidii hadda looga yeeleen xabad joojinta haddana inay nooga yeelaan oo la kala qaado oo nin kasta tacabkiisii iyo xoolihiisii uu ku noqdo waxaan ka leenahay rajo 100% in yani waxaan waa la dalay dadkana marka hore dad baa isku diray ama dad baa ka dhex shaqeeyay insha Allah hadana waxaan jecelnahay in dadkaas la gubo oo arrintaas ay doobtaas la dhayo aysan mar dambe nagu soo noqonin intii wax garatana inay nagu caawiso oo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ka soo odayaasha dhaqanka ee dhinaca Balcad jooga matalayan beel ka mid ah beelaha dagaalamaya ayaa lagu eedeeyay inay dagaalka gadaal ka horinayaan oo ay waawaanti ka soo daaheen oo ay nabadeynta diideen maxaad ka oran lahayd walaal qof kasta horta wuu iska hadli karaa ama wuxuu rabo sheegi karaa dagaalna hadda qof horinayo faa'iido kama helayo min Balcad joogana hadda dagaalka horintiisa iyo damintiisa lama weydiinin dadka maanta ku baxayna dadkii beesha dagaalamaysa ma ahana waa beesha dhulka iska leh iyo deegaanka beeraleyda oo seentada kulahoo ganacsatada waaweyn oo magaalada degan ama tuulooyinkaas ku dhaqmo ayaa ka danqaday in la joojiyo dagaaladaas marka labada beelood ee dhibka geysanaya amba isdilaayay odayaashooda dhaqanka hawshan ma ugu taalabo insha Allah dadka ku baxay ayaa hawshaas dhamaystiraayo wixii xisaabtana gobol isku iman doonaan ugaas Maxamed Wali ugaas Xasan oo Balcad jooga ayuu kaasi ahaa dhageystayaal oo dagaalkii maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan Balcad oo odayaal u diray oo faahfaahin ka bixinaya wararkii ugu dambeeyay xaaladda sidee tahay
dhinaca kale maamulka hirshabelle ayaa walaac ka muujiyay dagaal beeleedyada kusoo lalaabtay deegaanada maamulkaasi oo gobolka shabeellaha dhexe intiisa ugu badan oo ka dhacayo sidaas oo kalena hiiraan dagaal beeleedyo ay ka dhaceen dagaalkii ugu dambeeyey ee khasaaraha sababay muddo dhowr maalmood ah socdanay waa kii ka dhaca Benyaaley ee gobolka Hiiraan oo ay dad ku dhow 25 ruux qaarna ay ka sii badan yihiin bal la sheegay inay ku dhinteen sidaas oo kale dagaal kale ayaa maalmo ka hor ka qarxay deegaanka la yiraahdo Cadalle walina waxa halkaas ku sugan xubno uu gudoomiye u yahay gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyr Makaraan Axmed Faal kuwaas oo aan wali ku guuleysan inay soo xaliyaan dagaalkaasi iyadoo taa lagu maqan yahay ayaa balcad haddana waxay la daalaa dagaal beeleed kale haddaba maxaa sababay dagaalada Hirshabelle ay la daalaa oo magaalooyinkii ugu badnaa ay xiisaasi ka taagan yihiin arrimahaas iyo kuba kale waxaan weydiiyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi arrintaas iyada ah oo labada beelood ee Cadalle aagis ku dagaalamayso waa ka xumahay waa dad walaalo wada dhashay dib badan baa la soo maray abaar baa la soo maray colaad badan baa hore la soo maray maanta waxaa loo daadegi rabay in muxuu ahay dalka nabad noqdo dadkan hadda meesha ku dagaalamayo waa dad wada dhashay oo dad hadda la dhihi kara laba qabiil ma ahan dad wada dhashay weeye wax badan baa ka dhexeeya dhalashaa ka dhexaysa islaamnimada ka dhexaysa deesadaa ka dhexayso oo dhalashada ka dhexayso marka waxaan ugu baaqayaa inay mataqaanaa oo ay samraan wixii ka dhexdhacayna ay wada hadal ku dhamaystaan jeedinaya dad madax hadda ku howlan ama taliyaal ciidan ama muxuu ahay gudoomiyaha gobolka ama rag kale waxgarada ama aqoon-yahan nooc walba leh arrinta arrin murugole weeye ciil bay ku badnaa walaalka dhashayna hadda meel ku gaari maysid garabkaaga goyso weeye gacmahooda jir bay wax ku gooyaan ilkada wada jir bay wax ku cunaan baa la yidhi waxaan leeyahay arrintaas dadka walaalaha oo reer Cadalle inay joojiyaan dagaalka ayaan ugu baaqayaa waan gartay marka maxaa xal ah oo ilaa hadda laga gaaray Cadalle dad baa dhowr habeen ku hooyanayo madax ah oo Hirshabelle ka tirsan marka wax warbixino ma ka soo gaareen meeshii ugu dambeysay wararka marayaan anigu haddaan maaragtay runtaan sheego maanta waxoogaa meeshaan waxoogaa shirka lahaa muddo asbuucaan ku jiray haddaan meelkeeda ka yimid laakiin arrinta dadkay way korraysay oo haddee waa aada ii dhibaysay waxaase ogahay inay madaxda ku jiraan oo gobolka Shabeellaha Dhexe banaadirna aan laga marnayn oo waxgaradkii mataqaana halkaas nabadda jecel ay ka shaqaynayaan ama dadkii meesha deegaanka u dhashay ay ka shaqaynayaan madaxda gobolkana ee ciidamada xataa taliyaasha ay ka shaqaynayaan si ammaankaas noocaas loo joojin lahaa waaya balcad bay maanta wax ka dhaceen shalay iyo daraa way ka sii horreeydo dagaala ka dhacay tiradu 10 qof bay sii maraysaa oo ku geeriyootay marka arrimaha balcad bal ka waran arrinta fiican ma wax lagu farxo ma ahan labada dhinac waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan arrimaha dagaalada noocaas oo kaleeta ah wax faa'iida oo laga gaariya ma jirto khasaaro baa laga gaarayaa dadka hadda maanta wax badan laga dilayna ma faa'idin ku wax dilayna ma faa'idin marnaba ma garatay waan gartay marka waxaan leeyahay ha joojiyeen walaalnimo wax ku dhamaysteen wadahadal wax ku dhamaysteen ma baaqaya mudan gudoomiye waxa ka mid tahay madaxda ugu sareysa Hirshabelle dhibaata ka taagan deegaanadiina Shabeellaha Dhexe dhowr meel bay dagaal beeleedyo ka socdaan Hiiraan waa la mid maxaa idinku soo kordhiyay dagaalkan waagii hore gobolku uu deganaan jiray kulli wada maamulka Hirshabelle ku dhismay hadii kulli dagaalada ugu hore waa iska jireen oo waliba dagaalada jireen waa la heshiin jiray meesha hadda dagaalada hadda waxa ka baaqay waxa weeye waa dadka reer guuraaga u badan ka bilaabatay eeriyada dadka reer guuraaga mataqaana deegaanka xoolaha wax dhaxmareen reeraan wax kala daaq bay soo galeen oo dadka kii abaarta ku dhacday meelaha xoolaha roobka yar daagaysha la isugu yimid meesha hadda xoolaha dib ka dhacay haddana waa diganta taas waa xasilada hadda saas uma socoto waa aad loo dadaalayaa si wax loo xalin ma waaya ma dhinaciina ka jiiftaa in xal waara laga gaaro dhammaan dagaal beeleedyada Hirshabelle mise dhinaca oo kaleentooda idinka haystaa oo dadka dagaalamaya culayska xaguu idinka haystaa waxa weeye horta balaayada waa degdeg badan tahay oo si mataqaana wax ku dhacaan waa fududahay laakiin sida lagu xalliyo aad u adag tahay oo xisaabtan baa imaanayo oo dad iska iskaan maarata nabadda jeclan baa iska imaanayo oo dad isku hurinaya la helaya shaydaan baa iska jira dad fiican oo wanaagsan oo nabadda jecel oo ayaga xasilan waa jiraan kulli muddo fiican baa la raacayaa waxaan rajo fiican ka qabnaa insha Allah inay arrimahaas doon doonaan maanta oo dadka ay ilaahay qalbigooda soo celin doono ilaahayna ilaahay ku soo doono insha Allah ugu dambeyn hay'adaha shaqada kulli arrintan ee Hirshabelle
wax baaqa iyo talooyin aad la wadaagayso oo dagaal beeleedkan dadku ay ku dhamaadeen ka socda gobolka meelo ka mid ah iyo waliba hiiraanba wallahi horta waad garan kartaa iyo shacabkan wuxuu ahaa wuxuu u baahan yahay inay jirto awood dawladeed inay jirto loo baahan yahay haddaan awood dawladeed jirin shacabkan qofkii baa ku faafay qofkaasna waa nin walba waa dhib kii hayana waa dhib ku qabaa kii aan haysan dhib ku qabaa marna inta qofkaas mataqaanaa uu dadka shacabka gacantooda ku jiro waa marna isma daynayaan waa dhibaatada halku ay soconaysaa saan daynayo laakiin ilaahay waxa ka baryaa in dadka ay mataqaanaa wada fahmaan oo ilaahay imaanka ku dejiyo waxaa lagu baaqayaa marka waxaan leeyahay arrimahaas waxaa lagu xallin karaa in awood loo helo laga maarmaan ayagana caqliga oo shaqeeyo oo dadka dhaqanka odayaasha ay shaqeeyaan waa laga maarmaan dadka mataqaanaa mas-uulka laga yahay ama dhaqan ha madaxa kale dawladda madaxa u ahaadeen inay u dhagar walaadaan maslaxadooda laga shaqeynayaa waxa loogu baaqaya ama laleeyahay joojiya waa inay yeelaan oo maslaxadda ay qaataan dad xeer bay leeyihiin deegaanada dadka deriska ah xeerar gaar hoose ay leeyihiin